بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قدوميها قولها شعبك مدن محمد مرسل عبد الرحمن قدومي كحيينك مدن عبد الولي الشيخ إبراهيم مدي قدومي كحيينك لبعض مدن مهد عبد الله عود اللي بعنا شرفت له قولها شعبك بهذا صحافة مدن علي مروين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ugu horeyn waxaan uga mahad celinayaa guddoonka golaha shacabka iyo xildhibaanada sharafta leh inaad ii ogolaateen in aan idin hor imaado si aan warbixin kooban idinkaga siiyo waxyaabihii ii qabsoomay xukuumadda boqolkii maalmood ee la soo dhaafay. barnaamijkii ay xukuumaddu u soo bandhigtay golaha shacabka bishii Oktoobar 24keedii 2020 wuxuu saldhig u ahaa qorshe howleedka xukuumadda oo ay soo diyaariyeen golaha wasiirada markii ay waajibaadkoodii guda galeen. barnaamijkii xukuumaddu wuxuu qeexayay arrimaha hortabinta u leh sida dardargelinta doorashooyinka, sugidda amniga guud ee dalka gaar ahaan amniga doorashooyinka, horumarinta cadaaladda, dhab u heshiisiinta, dowlad wanaagga, la dagaalanka musuqmaasuqa, kobcinta dhaqaalaha, tayeynta adeega bulshada iyo xakamaynta masiibooyinka sida caabuqa COVID-19, ayaxa, abaaraha iyo fatahaadaha. barnaamijkii ay xukuumadda golaha sharafta leh u soo gudbisay wuxuu ku qotomay qorshe 100 maalmood oo hortabin u leh xukuumadda. buugyaradii liidin qaybiyey waxaa lagu soo koobay waxqabadka xukuumadda ee 100 maalmood ee ugu horreeyey. waxaadna ka heli kartaan qoraallo faahfaahsan oo ka hadlaya tallaabooyinka aan qaadnay si looga dhabeeyo higsiga iyo himilooyinka shacabka Soomaaliyeed. qorshaha 100 maalmood waxa uu ku salaysnaa baahiyaha kala duwan ee ka jira dalka gaar ahaan waqtiga lagu jiro ee xilli doorasheedka ah kaasoo u baahan karti iyo dadaal dheeri ah. xildhibaanada sharafta leh mudane ali marwooyin si loo fududeeyo wada shaqaynta hay'adaha dawladaha iyo la xisaabtankooda waxay xukuumaddu wasaaradaha u qaybisay 4 tiir oo kala ah: 1 tiirka siyaasadda loo dhan yahay oo ay ku urursan yihiin wasaaradaha halbowlaha u ah taabagelinta hannaanka dowladnimada ee dalka iyo arrimaha siyaasadda. 2 tiirka horumarinta dhaqaalaha oo ay ka mid yihiin wasaaradaha ku shaqada leh wax soo saarka iyo horumarinta dhaqaalaha. 3 tiirka amniga iyo cadaaladda oo ay hoos yimaadaan wasaaradaha iyo hay'adaha ku shaqada leh ammaanka, cadaaladda. 4 tiirka horumarinta arrimaha bulshada oo ay ku urursan yihiin wasaaradaha bixiya adeegyada bulshada. isla markii ay xukuumaddu howlgashay waxa ay golaha wasiiradu yeesheen banbax 3 maalmood ah oo ay ku qorsheynayeen howlaha la qaban karo 100 maalmood ee ugu horreeya ee ay ku eg tahay maanta oo ay tahay 10 bisha February 2021. xildhibaanada sharafta leh mudan yaal marwooyin si aan u xoojino isla xisaabtanka, daahfurnaanta, maamul wanaagga waxaan wasiir kasta la galay oo la saxiixday ahdi ay ku jiraan dhammaan howlaha ay ballan qaadeen in ay wasaaradoodu ku hirgeliyaan 100 maalmood gudahooda. tiir kasta waxa uu qabsoomay waxa ay ku faahfaahsan yihiin buugyaraha hortiina yaallo oo hore lidinkugu qeybiye. sidaa darteed ma rabo in aan waqti idinkaga qaado, laakiin waxaan rabaa inaan si kooban ugu bidhaamiyo. 1 tiirka horumarinta dhaqaalaha. horumarka laga gaaray horumarinta dhaqaalaha waxaa ka mid ah xukuumaddu waxay ku guulaysatay kordhinta dakhliga. tusaale, dakhligii ka soo xarooda dekedda Muqdisho wuxuu sare u kacay 30%. 7 milyan 8 milyan ayaa la qaadi jiray. bishii November waxa uu gaaray 12 milyan iyo 600, taasoo noo suurtagelisay inaan sii joogtayno xuquuqda shaqaalaha iyo ciidamada. xukuumaddu waxay dardargelisay nidaam deyn cafiska iyadoo fulisay dhammaan bartilmaamyadeedii looga baahnaa. xukuumaddu waxay dardargelin ku samaysay horumarinta heshiisyada ganacsiga ee laba dhinaclaha ah, kuwa gobolka Komeesa, heshiiska dalalka Afrika ee ganacsiga xorta ah, iyo
kuwa caalamiga ugu horeyso hay'adda ganacsiga adduunka WTO. xukuumaddu waxay xoojisay dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha gaar ahaan wadooyinka isku xira magaalada Muqdisho gudaheeda, jidka weyn ee u dhaxeeya Muqdisho Afgooye iyo kuwa kale. tiirka labaad oo ah tiirka horumarinta arrimaha bulshada, xukuumaddu waxay sii waday bixinta adeegyada bulshada iyo ka hortagga aafooyinka. waxyaabaha lagu guuleysana waxaa ka mid ah ka hortagga la tacaalidda iyo u diyaar garowga masiibooyinka sida caabuqa COVID-19, anyaxa, abaaraha iyo fatahaadaha. xoojinta isdhexgalka bulshada, nabadda iyo dhab u heshiisiinteeda oo loo marayo horumarinta isboortiga oo u dambeeyay tartankii ciyaaraha ee dowlad goboleedyada iyo nabadeynta beelaha Soomaaliyeed ee colaadda dhex yaaleen. dhamaystirka istiraatiijiyadda qaran ee shaqo abuurka, diyaarinta qorshaha ilaalinta iyo xaqiijinta qoondada haweenka 30% ay ku yeelan doonaan haddii Ilaahay raalli ka noqdo baarlamaanka 11aad. 3 tiirka amniga iyo cadaaladda, wuxuu xoogga saaray hirgelinta qorshaha kala guurka amniga qaranka kaas oo u gogol xaaraya xoreyn dhammaystiran oo dalka ka dhacda iyo dhammaystirka hannaanka cadaaladda iyo garsoorka. waxaana ka mid ah xukuumaddu waxay furtay inta badan wadooyinkii xirnaa ee magaaladan aan ku noolnahay ee Muqdisho, taas oo culays ku ahayd dhaqaalaha iyo isku socodka bulshada caasimadda oo aad markhaati ka tihiin. tababaridda, qalabaynta iyo howlgelinta ciidamada ka hortagga walxaha qarxa, qaabaynta qaab dhismeedka hoggaanka sahanka iyo sirdoonka ee ciidamada xoogga dalka iyo ciidanka booliiska Soomaaliyeed. waxaa kaloo ka mid ah diyaarinta qorshaha amniga doorashada 2021. xildhibaanada sharafta leh mudanayaal iyo marwooyin, anigoo ka faa'iideysanaya munaasabadan waxaan rabaa in aan wargeliyo shacabka Soomaaliyeed in uu xil naga wada saaran yahay ilaalinta amniga iyo xasiloonida dalka. qofna lagama aqbalayo inuu isku dayo qalqalgelinta amniga iyo deganaanshaha dalka. dowladnimadu aan maanta haysanaa waxay noogu fadhidaa qiimo aad u weyn oo aad wada ogsoon tihiin, waxaana waajib nagu ah in aan wada ilaashanno oon ka ilaashanno dhammaan cadowga gudaha iyo dibaddaba. Soomaalidu waxay tiraahdaa uguna mahmahayaa nin aan kuu furi doonin iyo ku rarin, marka waa inaan ilaashanaa amnigeenna. 4 tiirka siyaasadda loo dhan yahay, waxaa nooga qabsoomay howlo hortawin u leh xukuumadda ay ugu waaweyn yihiin dardargelinta arrimaha doorashooyinka, dhisidda golayaasha deegaanka oo aan ka hirgelinay Gaalkacyo, Galmudug, haddana wejigii ugu dambeeyey laga dhaqangelinayo magaalooyinka kale oo ay ka mid tahay Samareeb. xoojinta siyaasadda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga, ka qaybgelinta bulshada rayidka ee arrimaha masiiriga ah ee la xiriira doorashooyinka. xildhibaanada sharafta leh mudanayaal iyo marwooyin, sidii aan hortiina ka ballan qaaday, xukuumaddaydu waxa ugu weyn oo ay marxaladdan laga sugayo waa hirgelinta doorashooyinka xildhibaanada 2 aqal ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Soomaaliyeed. doorashooyinkaas oo u dhaca si hufan oo xor iyo xalaal ah. waxaan dadaal dheer u galnay sidii loo xaqiijin lahaa doorashooyin la isku raacsan yahay, waxaana geed dheer iyo geed gaaban u fuulnay sidii aan waajibka naga saaran u gudan lahayn, isla markaana u dhaqangelin lahayn doorashooyin la isla ogol yahay. waxaa maragma doonto ah inaan safarro ku tagnay dowlad goboleedyada qaar, inta shir oo aan la yeelanay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada, siyaasiyiin kale, bulshada rayidka ah, si aan isugu soo dhoweyno arrimaha lagu kala aragti duwan yahay ee doorashooyinka. sida aad ogtihiin, iyadoo laga qaadayo go'aanadii hordhac ahaa ee lagu gaaray shirarkii Dhuusamareeb 1, 2 iyo 3 laguna soo gunaanaday magaalada Muqdisho 17 Sebtembar 2020, waxaa golaha wadatashiga qaranku ku heshiiyeen mabaadi'da guud ee doorashooyinka dalka. heshiiskaas waxaa kulan wadajir ah ku ansixiyey 2 aqal ee baarlamaanka federaalka 26 Sebtembar 2020. habraacyada heshiiska doorashooyinka ayaa lagu qeexay qaabka doorashooyinka, ergooyinka, deegaan doorashada, qoondada haweenka iyo in doorashooyinku ku dhacaan waqtigooda.
sidoo kale golaha wadatashiga qaranku waxay 1 Oktoobar 2020 soo saareen habraaca iyo muhiim ah oo ah dhaqangelinta doorashooyinka kaas oo faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay jadwalka doorashooyinka deegaan doorashooyinka idin sheegay asteynta kuraasta golaha shacabka iyo hanan u gaar ah doorashooyinka Somaliland waxaa xusid mudan in ay tirada ergooyinka wax dooranaya iyo deegaan doorashooyinka ka horumarsan yihiin marka loo barbardhigo doorashooyinkii 2016-17 taas oo gogol xaar u ah in hadduu Allah subxaanahu wa tacaala raalli ka noqdo 2025 ay dalka ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah iyadoo oo daahfuran iyadoo oo duruufo adag lagu jiro isla markaana aan ogsoonahay waajibka gaarka ah ee naga saaran in aan doorashooyinku ku dhacaan waqtigoodii waxaan qaadanay tallaabooyin ku qotoma hirgelinta heshiiska 17 September 2020 si loo fuliyo heshiiskaasi waxaan qaadanay tallaabooyin muhiim u ah qabsoomidda doorashooyinka labada aqal annaga oo magacaabnay guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal guddiga maamulaya doorashooyinka heer dowlad goboleed iyo guddiga xalinta khilaafaadka la tashiyo ballaaran kadib waxaa noo suurta gashay magacaabista guddiyada doorashooyinka heer federaal kuwa dowlad goboleed inta heshiisku dhigayo iyo ay xukuumadda magacaabdo kuwa maamulaya doorashooyinka Somaliland banaadiriga iyo guddiga xalinta khilaafaadka xukuumaddu waxay kaloo dejisay qorshaha amniga doorashooyinka iyo miisaaniyadii loogu talagalay in lagu fududeeyo habsami u socodka doorashooyinka waxyaabahaas oo idil waxay muujinayaan sida aysan marnaba xukuumaddeedu uga gaabin in dalka hore loo dhaqaajiyo la xoojiyo dhaqanka dimuqraadiyadda ee aan ku heshiinay lana joogteeyo dhaqanka qori isku dhiibka ah ee ay Soomaalidu heshiis ku tahay xildhibaanada sharafta leh mudanayaal marwooyin 6 bishan February waxa uu madaxweynaha jamhuuriyadda idin faahfaahiyay dadaaladii ay dowladda federaalku u gashay in ay wadanka ka qabsoomaan doorashooyin xilligoodii ku qabsooma isla markaana uu idinla socodsiiyay tanaasulaadkii iyo dulqaadkii ay dowladdu muujisay si ay u qanciso cid kasta oo wax tabanaysa sida aad la socotaan aniga iyo xubno ka mid ah xukuumaddeedu waxaan safarro shaqo ku tagnay dowlad goboleedyada qaarkood annagoo kulamo la tashiya la yeelanay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada koonfur galbeed Puntland galmudug qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo hoggaanka bulshada rayidka kulankii ugu dambeeyay ee Samareeb 4 madaxweynaha jamhuuriyadda ra'iisul wasaaraha madaxweynayaasha dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir waxay ku bixiyeen dadaal aan la soo koobi karin iyadoo ay dowladda federaalku ay ka muujisay tanaasulaad badan waxyaabihii la isku hayay haddaba waxaa laga maarmayn in si daacad ah looga wada xaajoodo caqabadaha ku horgudban hirgelinta heshiiska doorashooyinka ee la gaaray 17 September 2020 xildhibaanada sharafta leh mudanayaal marwooyin waxaan soo dhaweynayaa dadaalada lagu doonayo in isfaham buuxa laga gaaro arrimaha doorashooyinka anigoo xoojinaya shirkii wada tashiga arrimaha doorashooyinka ee uu ku dhawaaqay madaxweynaha jamhuuriyadda in la qabto 15 bishan February ugu dambeyn waxaan shacabka Soomaaliyeed u sheegayaa hore ayaan doorashooyin u soo qabsanay innaga oo intaan ka Itaaliyar maanta waxaan haysanaa dhammaan aqoontii kartidii niyaddii aan doorasho ku geli lahayn sida aan hortiina hore uga ballan qaaday waxaan u taaganahay hirgelin doorasho xor iyo xalaal ah xukuumad ahaan waxa waajib shaqo naga saaran yahay hirgelinta doorasho hufan xalaal ah la isla wada ogol yahay waxaan hortiina ummadda Soomaaliyeed uga cadeynayaa inaan u taaganahay hirgelinta doorashada iyo inaan wixii caqabado ah ee hor yaalla ka wareejino fududayno cidda u xil saaran u madax bannaanaato awood siino guddiyada doorashada iyo hay'adaha kale ee shaqada ku leh waxaan ku dardaarmayaa isku duubni walaalayaashay Soomaalida iskaashi wada shaqayn wanaagsan waxaan ku dardaarmayaa idinkala dardaarmayaa walaalihii xildhibaanada ah in qof kasta oo muwaadin ah kaalintiisa ka qaato marxaladan kala guurka ah waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu